السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعبي الصوماليات مال والبود جوكتان سودو هذا ما أنت وحانيدين وذا ورئيس عادي عاد وحيصله وحا ما أنت برنامج كمرتين وقوة مدحوينها اسمه دلدونكا شعبيقا جبلان مرو صوبا ماهد ديرير oo shaqo badan ka soo qabatay deegaanada Jubbaland ayaa barnaamijka martiin ugu ah maanta uu ka xiiso badan yahay maalmihii hore waxaan rabnaa shacbiga Soomaaliyeed iyo asxaabta halka ku xiran oo dhan inaad share gareysaan isgaarsiisaan oo barnaamijku cirka gaaro waxaanu ka hadlaynaa waa masiirka qaranka Soomaaliyeed waxaanu ka hadlaynaa waa dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ku hayaan ciidamada Kenyaanka iyo Maleesiyaadka murtasaqiinta ah marka soo dhawaada mudana madaxweyne waan bilaabanayna wareysiga marwa suuban mahadirir madaxweynaha xaqa ah ee Jubbaland ku soo dhawo barnaamijka maxamed waa mahadsan tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waa salaamaya waana ku mahadsan tahay maanta in barnaamijkan ugu soo casantay waana loo baahan yahay in shacabka ay caalashan ogaadaan waxyaabaha ka jira Jubbaland marka waa ku mahadsan tahay waa dhawahay marwa suuban waxaan rabnaa wax yar inaad la wadaagto waxa kugu kalifay adigoo dumar ah diblomaasi ah inaad isku soo taagto xilka intaa la eg mas'uuliyadda intaa la eg ee shacbigan reer Jubbaland ee barkoodna al-shabaab haysto barkoodna Kenyaanku haystaan maxamed waa mahadsan tahay horta run ahaantii waxay ugu kaliftay waxay tahay markaan waqti dheer dalka u soo shaqaynayay أنا أوجا سجال كسنة سيد أحمد مروال بق ومحل ده كرسي السياسة رئيسا ومحل حوينياشي هرا إذن أوجا قاعدين وأستقول الديدين هاي أو مرة برلمان كديدين هنا عدول الديدين هاي ومروال بق كوجول السنة أنا أوج بان وحن كنت لقلي إن عن أدليستي هديبة بولدي فدرال صلاة هاي خاشة غير أحمد كذا شيء كليا الصوت شرحي كرا inaan inta Axmed u tago aan dhaho adaa adeero meesha jooga wixii hore sax strategy la imo wixii hore aad khaladay qof weyn oo Soomaali baa tahay Soomaali waa iscafistaa wixii hore aad khaladay sax maxaa la dhahaa wax fiican samee saan qaybsigii sax dadka waxay ka qaylinayaan waa aasaaskii Jubbaland inay khaldanay hadda dhankii fiicnaayo wanaagsanaa hadda aad si marka aad saxayso loo ogyahay inaad tahay aasaasihii Jubbaland طبعاً أحمد هذا المعيي ويقدر إنه واحد بديار فيه هاي وقت الآن تدي أي أنت أسعتي الدولة الفدرال كان أما تذكي كسور شيء أحمد نعم شيء جد كإقادنا يعني أما كان كإقادة يعني إن يتن أيضا من ذلك إيمانين أيان هذا نمر لبعض لأن يرب بدن يددوا يأرق أو وضع شيء كيسني وح استثني سيد أحمد كوجول يستمر والبق أو إنه كفى إذا يستكل جورك haddana kala guurkii ay waqti fiican ka dhiman tahay hadii hadda sidii oo kale tawa arintii ku socotay maxaa xal ah waxa la istusay inaysan xidiga seeraar ahayn dad cuntamaya markaasna waxa samaysmay xidiga seeraar oo isla doortay haddana sida aan la socotaana waxaan rabaa inaan idin cadeeyo mar walba waxay tahay in sharciyada la ilaaliyo qofka markuu maamul inuu madax ka noqdo ama uu rabo waa inuu sharciga iyo nidaamka dalka u yaala uu raacaa because dawladnimada waa nidaam iyo sharci marka anaga waxaan rumaynaynay dawladnimadii iyo nidaamkii iyo habka la raacay baan rumaynaynay markay dawladii ku dhawaaqday in wax alla wixii halka ka samaysmay habraaci ay ku samaysmeen ee khaldan tahay waxa soo baxday fursad sax ah oo qof walba oo siyaasi ah ay tahay inuu ka faa'iideysto maxaa yeelay dastuurka wuxuu qorayaa aayaha shacabka inay ayaga ka tashan karaan shacab walba oo Soomaali ah maamul ah inay masiirkooda ka tashan karaan dawladda federaalka waxay tahay kor joogta inay ka noqoto oo ay eegto maadaama habraaci وسن أحمد لجرب وسن راعين أو ساردي أرمها جودها أي كسر صارتي إن جود دور شر وسن صح هين إن برلمان كي وسن صح هين إن وسن محل لها أحمد ثقل بن إسكو دورتي وحي هركع كأشياء أي ودخل ديني أنا لو حنصاب إن أي فرصة برنامج هاي فرصة دعت نستحق إن لو جفا إذا يستعيد هاي أحمد وأطرني مرلوات في أنا هدو نلاقيه وحنقول هنا وحق أتسمى وخلدن هاي sida aad ku socoto waa khaldan tahay tan ugu xun oo ugu dhibaatada badan waxay tahay in dadkii deegaanka aad ka soo qaaday oo qabiil walba oo Soomaali ah kaad ka dhalatay waxa ahaade inaad ka soo qaaday inay nasan yihiin aysan dad jira aysan ahayn
oo waxa aad xoog noogu haysanayso ama aad rabto dawladii federaalka inaad ku baabi'isana ay tahay Kenya waxaan ka qaadan karnana ma aha damiir qof leh inuu saacan yeelo ma aha ayaan ugu tagay markii ugu dambeysay oo Axmed la kulmo waxaana ku iri wixii halka ka imaada ama ka samaysma adaa sameeyay annaga intaan ku ixtiraami karno on raadin karno inaan calaashaad aad istaxdid waa ku siinay fursad waadna isixi weyday markaas ayaan dadkii ku soo noqday waxaana yeelnay inaan kacdoonkii halka ka dhashay oo gobolada Soomaaliya ee Jubbaland oo idin degmooyinkeeda galo iyo maxaa la dhahaa Kismaayo iyo meel walba ka dhashay inaan midaysano markaasna waxay dadkii ii doorteen madaxweynaha shacabka Jubbaland oo kacdoonka ku imaaday sidaas ayaan waxaan ku noqday aniga madaxweynihii magaalada Kismaayo ayaan markaas warbaahinta kula hadalnay maadaama aan diidanayn in haddii la isku soo baxo dadka ay dhibaato ku dhici karto waxaan istusnay maadaama meel walba uu kacdoonkii ka jiro inaan socdaal meel walba ku marno codkana aan awoodda shacabka u celino oo maadaama aan sheeganayno cod shacab inaan haysanana inaan si sax u muujino inaan codkii shacabka haysano waxaan tagay deegaanadii gobolka Gadow idil shacabkii ay soo kay soo baxay saddex wax ayaana gadaynay waxaan rabnay horta marka hore inaan ogaano dadka waxa maxaa la dhahaa wacyigelin baa u soconay iyo ogaansho dadka rabitaankooda wuxuu yahay waxaan noo soo baxday shacabka Jubbaland oo idil meel kasta ha joogaan degmo kasta ha joogaan in ay aaminsan yihiin in aysan aasaaskii Jubbaland aysan waxba ku lahayn aasaas cusub in la sameeyo wax wada ogol la sameeyo si hore socod ay u imaato marka waxaan sameynay saddex qodob oo saddexdaas qodob ay ahayd marka hore in awoodda shacabka aan u celino marka labaadna wax wada ogol oo dadkii ka imaatay oo dhaqankii u fadhiisanay oo ay reer Jubbaland oo dhan ogol yihiin inaan maxaa la dhahaa dhalino kadibna si baarlamaan iyo dawlad sax ah laba sano ku meel gaaran aan ku shaqeyno midda ugu daran oo ay shacabka Jubbaland ka wada qaylinayeen waxay ahayd dawladda Kenya qaabka ay ku joogto Jubbaland oo dib u eegid lagu suubiyo taasna amisom waa kala hadalnay dawladda federaalka waa u soo bandhignay waxyaabo yar amisom dhankeeda inay iska bedel rabeen waa loo jeedaa marka saddexdaas qodob laba waxa moodaa inaan tii ahayd amisom oo xoogaa hadda dad badan ay ka hadlayaan amisomtii xataa hadda ay xoogaa iyadiiba inay hagaajiso ay rabto iyo tii ahayd shacabka inaan u celino codka waa samaynay tan weli aanan samayn waxay tahay wax wada ogol oo Jubbaland u wada dhan tahay taasna dawladda ayaa waxaan leenahay eedda ugu badan waxaan saaraynaa dawladda federaalka oo aan moodaa inay lugaha nagu dhagtay oo haddana hadeertaan dhabar jab xoog lagu samaysay markii Axmed aqoonsiga siisay aad iyo aad mudane madaxweyne marwo suuban mahadirir waxaan ogsoonahay kadib markii muddaxileedkii xaaraanta ahaa ee Axmed Madoobe uu dhamaaday in shacbigii reer Jubbaland oo dhan isku yimaadeen magaalada Kismaayo iskugu yimid siyaasiyiin adigu aad ka mid tahay magaalada Kismaayo yimaadeen kuna dhawaaqdeen madaxweynayaal inaad tihiin Axmedna uu ka mid ahaa madaxweynayaashaas garabka isbeddeldoonka garabka shacbiga magaalada Kismaayo waxaa looga wada dhawaaqay Axmed Madoobe madaxweyne Seeraar oo madaxweyne adigoo madaxweyne Maxamed Yarow oo madaxweyne afar madaxweyne iyo madaxweyne baardheer looga dhawaaqay ayaa intaasi hal mar isla dhacay kadib dhaqan xumadii Axmed iyo maleeshiyaadkii Kenyaanku ay soo tababareen magaalada Kismaayo haystay xaqiina wax xiriir ma in la samaysay markay dawladda federaalka Soomaaliya aqoonsanaysay Axmed Madoobe ee labada sano ku meel gaarka ay sinaysay wax tala ama ka weydiisay wax xiriirna lama samaynin laakiin waxaan rabaa inaan wax ku bayaamiyo madaxweynayaasha ka dhashay waqtigii Axmed kala guurkiisa Kismaayo ka dhashay waxay ahaayeen xid iyo Seeraar iyo Axmed Madoobe oo isku waqti samaysmay oo ay dawladda federaalka ku tilmaantay inay sharci darro yihiin laakiin aniga oo waqtiga kadib samaysmay oo markay sharci darradii samaysmatay kadib fursadii soo baxday oo dadka masiirkooda inay ka tashan karaan maadaama aan aqoonsi wax la siiyay aysan jirin baa anaga samaysmanay intaa kaliya kumaanan samaysmanay anaga aragtidna la arkaayo oo aan goboladii deegaanadii tagnay ay dawladda federaalkana arkayso ummadii shacabkiina arkayso shacabkii codkana siiyeen bay ahayd wax haba yaraatee tixgelin oo ay dawladda federaalkana siisay ama ay nala soo xiriirtay ama ay xataa waxyaabaha ugu daranna waxay tahay dadka dhammaan isbedeldoonkii oo xataa isbedeldoonkana waa badnaa waxaas yani isbedeldoonka inaan xidiga Seeraar kaliya aysan ahayn shacab badan oo gooni u taagan oo waxaa jira isbedeldoon oo ayaga aanan ku dhawaaqin sida xidiga Seeraar wuxuu sharci darro ahay sida Axmed oo kala sharci darro lagu tilmaamay laakiin waxaa jiray dad badan oo isbedeldoona
oo ayaga gooni u taagan oonan maxaa la dhahaa waqti ilaa aanan xamar ku dhibaataysan dhaqaalahoodii uga wada baxay kasoo qaxay maxaa la dhahaa xamar dadkaasna annagay hadda badi nala safan yihiin annagay nala socdaan waana dadka aan rabna inaan geyno maxaa la dhahaa garbaharey oo si aayihii jubbaland looga tashto waxaa ayaan darro ah dowladda wax ay xiriir nala soo samaysay iyadoo og oon miiriyaha ka sheegay ilaa iyo 4 bil ka hor aan ka sheegayay inay dadkaa dayacan yihiin ayna u baahan yihiin inay xamar ka tagaan because xamar waxay ugu imaadeen kasoo qaxeen magaalada Kismaayo waana ku dayacan yihiin waxayna u baahan yihiin inay deegaanadoodii ku laabtaan si ay masiirkooda uga tashtaan sideedana dadku waa asad shacabku waa asad dadka asadnimada ay yihiin inay wax qabsadaan hadday rabaan in xamar lagu hayo waxay dhibaato ku keenaysaa dadka quluubtoodii iyo niyad wanaagii ay dadka u socdeen marka waxaasoo idil waxaa moodaa in dadkii iyagoo halkaas loo bahdilay oo meeshaan saa u jooga haddana in axmed 2 sano maxaa la dhahaa la siiyey oo walaacal sanadka ah la siiyey marka taana waxay keentay niyad jab xoog leh laakiin weli maxaa la dhahaa ma joogsanayna annagana waxaan nahay run ahaantii waxaan nahay madaxweynaha sax oo maanta ay aaminsan yihiin shacabka jubbaland baa ahay marka waxa kaliya aan u baahannahay waxay tahay in shacabka jubbaland oo idin ay ogaadaan horumar iyo horsocod waxaa keeni kara inaan annaga isku tashano ceelna nooma maqna cidna nooma maqna dowladda federaalka nama rabto inay wax noo qabato maxaa yeelay ayadii baa mashquulsan oo ku mashquulsan kala guurkii axmedna waxa uu ka faa'iidaysto oo intaasoo sana sheegaynay ama aan annaga u samaysmanay oo inaan arrintan ka hortagna u samaysmanayna waxay inuusan saa uu hadda weligiis u faa'iidaysanayay uu u faa'iidaysta markaas aad su'aal isweydiiyey mudane madaxweyne marwo suuban mahadirir su'aal shacbiga soomaaliyeed ay isweydiiyaan baa jiro dad fara badan oo qurba joog u badan aan ka warqabin wacyiga dalka ka jiro waxaan rabnaa su'aal inaan ku weydiino maxay tahay waxaad haddaya ka dhawaajisay inay mar walba waxaan soo noqnoqdaan axmed madoobana uu ka faa'iidaysta xilliga kala guurka magaalada Kismaayo bal sharaxaad ummadda Soomaaliya ka sii ma meel Soomaali u siman tahay ma meel dadka reer Jubbaland u siman yihiin ma meel qof kasta iska sharaxi karaa mise waa meel xiran oo oodan oo hal nin iyo gumaysto uu wata haysto bal ummadda Soomaaliyeed la wadaag sawir noocee ah magaaladaasi ma ku dhiiran karaa qof musharax ah oo isbedel doon ah oo xor ah ma ku dhiiran karaa wa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka sheergalay ku soo horta run ahaantii maxamedow ma xaqiiqda qof keligii iska socda kuma dhiiran karo oo sideedaba siyaasadda Soomaaliya qof iska socda keligii inta halkaas kuma dhiiran karo laakiin waxyaabaha aniga aan ugu dhiiranayay dhowr goorba ugu dhiiranayay waxay tahay aniga madaxweyne ahay shacab baa i doortay inaan waa loo jeedaa in aan calashaan awoodii shacab aan haysto amisom waa aragtaa internationalkii waa aragtaan dowladdii federaalkana waa aragtaa marka waxyaabaha aan aniga uga duwanaa oo dhowr goor axmed wuu iga joojiyey sida aad la socotaanba axmed waa iga joojiyey aniga maxaa la dhahaa magaalada Kismaayo almost markii horon garbahare kasoo laabtay haddana waxaa iga joojiyey inay isaga tahay inay dowladda federaalka tahay ma cadda oo haddaba Kismaayo u socday aniga waxaan isticmaalayaa waxay tahay Kenya hadday amisom ku joogto waa inay ilaalisaa maxaa yeelay already sideedaba amisom waxay ku joogtaa mandate-keeda waxay tahay in ay ilaaliso political figure waxay tahay dadka calashaan haysta shacabiyad haysta oo siyaasi ah oo loo jeedo oo awood haysta aniga gobolkii gadoo dhan baa haysta haddaan magaalada Kismaayo oo shacabkaygii tahay aan imaanayo waa in ay amisom igu ilaalisaa maxaa la dhahaa magaalada Kismaayo marka sidaa la adligeed aniga haddaan anoo keligay ah baa tagaya wax kasta igu dhacaya qof keligiis aan inta iska baxo iskama tagi karo laakiin waxyaabaha aniga aan mar walba amisomna tusay internationalkana tusay dowladda federaalkana tusay waxay tahay haddaan Kismaayo tagayna axmed nagama haysta Kismaayo waxaan naga haysata dowladda Kenya waxay ku joogtaa magaca amisom waxay magaca amisom ugu joogtana waxay tahay in ay ilaaliso maxal ahaa madaxweynaha meeshaas loo magacaabay oo ah madaxweynaha runta ah oo Jubbaland haddii uu jiro qof kale oo political figure ah madaxweyne kale uu jiran inay asagana ilaaliso because waa inaysan isku dhac imaanin oo halkaa isku dhac ka imaanin ma aha in ay axmed kaliya u adeegto oo ay axmed axmed uma adeegaysa axmed bay ku adeeganaysaa in qof kale oo iska tagi kara ma jirto anigana run ahaantii labada goorba waa ku dhiiraday inaan tagana waa rabay amisomna waa la hadlay wixii halkaa igu dhacana waxaa ka mas-uulahayd ayada inkastoo ay aanan tegin laakiin haddana haddaan tegayo waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa waxa dhulka naga haysta waa maxaa la dhahaa dowladda Kenya ama dowladda Kenya waxay noqonaysaa inay ku shaqeyso mandate-ka amisom ama inay dhulka naga haysato inay cadaato taasi way caddahay okay waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo aad u caddayso
meesha waxaa tegay musharaxiin aada u fara badan axmed wixii ku reerka ahaa way iska sharaxeen hubbay qaateen way isdifaaceen waa loo geli waayey adiga iyo ninkaliya maxamed yarow oo u dhashay beesha gaal jecel labadiinaba waa ka cararteen kismaayo miyaysan ahayn meel loo siman yahay oo qofka doono oo reer jubbaland iska sharaxi karo mise waa meel la haystaan kuuri intaas inaad ummadda caddaysaan rabaa oo hal nin u xiran cadowna ku haysto inaad ummadda u caddayso intaas lagaa rabaa horta run ahaan waxaa fiican in xaqiiqada la fahmo axmed reer buu isku hadlaynayaa reerka uu isku hadlaynayana waa inuusan ayagii dhex taabanin axmed wuxuu meesha ku joogaa waa reerkiisii oo uu ka dhaadhicinayo adinkii baan wax idin hayaa inkastoosan ayagii waxba u hayninba maadaama uu ayagii saa isugu ilaalinayo oo ayagii leey meesha adinkaa idinku joogaa waa inuusan dhexdoodii dagaal ka dhicin marka xidig iyo seeraad inuu la dagaalamo marna ma dhacayso laakiin anigii oo ah qof dumar ah oo meeshii haddaan qabiil ku create gareeyo ama aan ku create gareeyo koox aan oo hadda ciidanka militariga oo meesha jooga ama ciidamo kaloo meel jooga ciidamo waa aruursan karay laakiin waxa aan kasoo horjeeday oo qori bay ahayd sidaa la adligeedna safena kuma ahayn mana joogi karin qof kalena ma joogi karo asagoon safetigiisii iyo maxaa la dhahaa ilaaladiisii haysanin laakiin xidig iyo seeraad sida aad sheegtay oo ay dadka u caddaanayso waxay tahay axmed reerka uu ka dhashay waana waxyaabaha laisku awrkacsado asagoon waxba u tarin waxba u qabanin magaaladii kismaayo maxaa la dhahaa horumar lahayn maxaa la dhahaa degaanadii ay degayeen horumar lahayn dhibaatada ay maanta ku qabaan ayaga dhan wada og yihiin buu haddana wuxuu uga awrkacsanayaa sidii ahaan jirta qabiil baan idinkugu ilaalinayaa meesha aniga haddaan lumo waa idin dhammaatay taana waa wixii laga soo gudbay oo maanta maxaa la dhahaa aan rabnay inaan ka gudubno oo aan u gudubno inay tahay qofka ummadda u imaanaya waa inuu ummadda u shaqeeya laakiin inuu reer ugu sheekeeya ma aha adinkaan meesha idinku joogaayo magaca igu protect gareeya marka wayba kasoo daaleenba laakiin sida aad sheegtay waa run dad badan oo waxaa jira weli aaminsan oo ku haya laakiin kismaayo intaan joognay dadka waa bislaadeen baahi xun baa ka jirta dhibaato xun baa ka jirta axmed waa la nacay reerka uu ka dhashaa nacay reeraha kaloo soomaalida oo kismaayo degan baa nacay laakiin mar walba fiirka wuu create garaynayaa ciidamo kale ha keensado ayagii dhexdoodiiba wuxuu ka create garaynayaa xataa hadday wax yar samaysmaan in la wada burburayo waana maxaa la dhahaa dhaqanka maxaa la dhahaa uu qofka noocaas oo kalaa mar walba ku dhaqmo uuna awoodda inuu ku haysto uu rabo waana dhaqan laga soo daalo oo in laga baxa tahay okay that's good su-aasha kalan ku weydiinaya waxay tahay kadib markii kismaayo aad amnigiina u baqdeen iskana sharaxi weydeen meel qof haystan ay noqotay adigu garabkii maadaama aad tahay madaxweynaha shacbiga jubbaland waxaad isku bedeshay inaad tagto inaad noqoto garabkii dib u xoreynta waxaad tagtay gobolka gado magaalada garbaharey waxaad ka qayb qaadatay wacyigelintii iyo abaabulkii looga xoreynayay malaysiyaadkii jidii jahadiidka ahaa ee degaanada saddexda ah ee luuq iyo baled xaawo iyo ku sugnaa dad ba waxay aaminsan yihiin ama dadka siyaasadda dowladda federaalka ku dhaliila ama axmed taageersanba waxay aaminsan yihiin meel nabad ah oo amni ka jiro oo wanaagsan inay ciidamada dowladda tageen bal meesha aad tagteen adiguna aad dhex taagnayd waktigaagana gelisay ee magaalooyinka doolow baled xaawo bal markaad tagteen maxaad ugu tagteen bal ummadda soomaaliyeed la wadaag maxamed waa mahadsan tahay horta waxaan rabaa maxamed oo inaan mid hore kuu saxo aniga kismaayo waaba meesha la iiga dhawaaqay oo madna wax kasta oo igu dhici kara ilaahay weynaa waaxidka io qora oo aniga ilaa markaan ku dhawaaqay magaalada kismaayo waxaan joogay 20 beri waa run cabsi way jirtay wax walba way jirtay laakiin allah kala saartay waana ka baxay sidaa sheegtay waa run degmooyinkaas waxaan ku sugnaa 5 bilood baan ku sugnaa waxaana joogay waqtiyadii ugu darnayd baan joogay waxay tahay ummadda Soomaaliyeed inay fahanto waxa la dagaalamayay ama mar walba ay dhibaatada ka jirtay ma ahan shacabka Soomaalida ah waxay tahay Kenya oo awood rabtay inay halka ku haysato saddexdaas degmana ay xashan u xirnaato oo ahay ka maxaa la dhahaa Axmedna uu aaminsan yahay in ay Kenya saddexdaas maadaama ay baardheer iyo garbaharey iyo mar horeba ay ahaayeen isbedel doonka dadka ugu horeeyay oo diida sidaa la adligeed dadka halkaa joogay waxay ku sugnaayeen dhibaatooyin badan waxay ku sugnaayeen inaysan horumar samaysan karin waxay ku sugnaayeen in dadkii la iska hor keeno waa sidaan horey kuugu sheegay oo ah waxa kismaayo ka jira oo in qabiil uu wixii ku haysanayo wuxuu dadka isaga hor keenay qabiil waana divided and rule waa dhaqanka uu qofka maxaa la dhahaa anuu Axmed afkiisa wuxuu igu yiri maxaa la dhahaa hadaa halkaa tigti waa lagu qalqalayaa oo reerkaagii aad ka dhalatay baa jifooyin u kala baxsan oo qalaya waxaasna wax ka jira lama arko marka waa divided and rule wuxuu ku dhaxayay kismaayo ku dhaxaya reerkiisa ku dhaxaya Soomaalida Jubbaland dhanbu ku dhaxaya waana awoodda uu rabo inuu wax ku haysto markaan meesha tagay run ahaantii annaga waxaan u tagnay dib heshiisiin inaan labada dhinac ka sameeyno
dhinacii xagga jiray oo nagu maxaa la dhahaa naga biyadiiday markay naga biyadiideenna lagu maxaa la dhahaa oo orkacsanaya oo loogu orkacsanayay inay maxaa la dhahaa soo weeraraan deegaanadii baled xaawo run ahaantiina waa u cadaynay annaga mar haduuba qofka xuduudda dhanka kale ka aaday uu dagaal dhulkiisii kusoo qaadayo waa dambiile maadaama uu dambiile yahayna automatically annaga waxaan soo raacnay dhankii dowladdan soo raacnay waxaa halkaa ugu darnaa oo ay ummadda soomaaliyeed inay ogaato ay tahay oo propaganda laga sheegayna diyaaradaha korkeena na weerarayay oo inkastoo magaalo kalooyin soo weerarayeen haddana korkeena run ahaantii waxay marayeen saqafka guryaheena ayay marayeen diyaaradaha Kenya oo diyaaradaha Kenya oo waxaad u malaysaa waxaad isleedahay wadnahaaga waxaad isleedahay goormay kugu dhufan rabtaa waxa run ahaantiina waxa ayaan daraa oo dad badan oo xildhibaano ah oo federaalka ah iyagoo aaminsan inay meesha waxa laga sheegayo been tahay markay telefono ii soo direen even xataa amisom annaga waqnay oo u sheegnay oo ku niri diyaaradaha naadinka kale ma lihin bay dhaheen subanay shaqo kuma lihin waxaan because inay soo galaanba waa khalad waa xadgudub fiiri waxay ku soo xadgudbaysaa dowladnimadii ummadda Soomaaliyeed oo ah inay soo gasho aad iyo aad oo ahayn inay soo gasho dhulka Soomaaliyeed marka waxa soo dhan u jeedid oo ummadii Soomaaliyeedna ay ka hadlayso ay leedahay Axmed baa calaysan waxyaabo aan jirin ummadii Soomaaliyeed ku sheekaysanayso xildhibaano badan oo federaalka markaan runta u sheegay runtii way aamin waayeen waana wax weligeed ka dhici jiray oo mar walba la siyaasadayn jiray oo shacabka gado lagu leeyin jiray si loo haysto oo aysan madaxa u qaadina ay ku socotay ciidanka federaalka oo dawladana run ahaantii waxaan oran karaa dhalinyaro geesiyaal ah oo run ahaantii mar alla markaan ka sheekeeyo calashan sida aan dhalinyaradaas u ammaanayo ana qaybid waxay ahaayeen dhalinyaro geesiyaal ah wadankooda u huray nafsadooda u huray isla mar ahaantaana Kenya ay markiiba adiga way samaysay wax badan laakiin waa naga joojisay waxaan ciyaalka ku sheegi karaa inay yihiin ciyaal calashan diblomaasiyadii aaminsan oo inta ilaalinaya inaysan Kenya iyo Soomaaliya dagaal ka dhicin ayagoo intaas diyaaradihii ay wax kasta nagu suubinayaan ayagoo soo ridi kara waxuma ay sameyn markay la dagaalayaan kooxda kaleeto oo ay ciiriyaan oo Mandheera ay geliyaan waxay dhahaan Mandheera waa dadkeeni baa degan Soomaali baa degan inay qax iyo dhibaato la kulanto ma rabno waxaasoo idil markaa aragtay dhalinyaradii Soomaalida ahayd in ay diidan yihiin inay Kenya barakiciyaan oo shacabkii Kenya ay ayaga u turayaan waxa ogaanaysaa ummadda Soomaaliyeed inay qaangaartay inayna diblomaasiyadda ka diblomaasiyaysan yihiin maxaa la dhahaa dawladda Kenya waana wax lagu ammaano siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo cid walbana waxaan leeyahay hal la ogaado faaktiga inta aanan propaganda lagu hadlin dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhageysanayana waxaan leeyahay wixii balad xaawo ka dhacay waxay ahayd wax ummadda Soomaaliyeed dhan loogu soo xadgudbay waxa la burburiyay hormuud anteenooyinkeedii ayay burburisay maxaa la dhahaa diyaaradihii Kenya waxay shacab ayay soo laysay oo ay maxaa la dhahaa diyaarada ku soo garaacday magaalooyinka qaarkood inkastoo aysan balad xaawo laakiin waxaa nagu soo dhacay madaafiyadooda ayaa balad xaawo nagu soo dhacay oo aan dhex joogay waxaasoo idilna waxaan sacrifice-ka noocaas u sameynay inaan xaqiiqda ogaado oon xaqiiqda qof iiga waramin alxamdulillah ilaahay wax iguma yeelin 5 bilood baan soo joogay waana dhalinyaradaas iyo ummadda halka joogtana waxaan leeyahay wanaagga iyo waxa ay tuseen iyo dhibaatada intaasoo sana haysatay oo ay u taagan yihiin inay ilaashadaan xuduudooda waa ugu mahadnaqayaa dowladda federaalka kan waxaa ugu mahadcelinayaa inay ciidankii ilaalin lahaa xuduudda ay geysay halkaa waana horumar maanta lagu ammaani karo dowladda federaalka marwa suuban mudane madaxweyne waxaan ogsoonahay intaysan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya aysan tagin adinkuna aan tagin annagu waxaan nahay dadkii deegaanadaas ka soo jeeday Bulaxaawo iyo deegaanada ka yimid waxaan ognahay in saraakiil ciidamada Kenya ah ay magaalada balad xaawo yimaadeen saraakiishii marka Axmed Madoobe hor u joogay la kulmeen ciidanka diwaangeliyeen $100 siiyeen ay rabtay 3 degmo inay Kenya qabsato oo ay gumaysiga gobolada NFD ay haystay ku darsato arrinkaasi ummadda in la wadaagtaan maxaa ka ogtarga horta run ahaan inay ku darsato maahane oo ku darsasho ma imaan karto mar walba waxaan nahay dal xuduud leh baan nahay laakiin dadkii inay horumar gaaraan baa laga ilaalinayaa waxaasna intii dawladii Xasan Sheekh iyo ka hor oo idil baan ka qaylin jirnay markay oran jirtay dadka waa shabaab oo dadka inta la iska soo laayo diyaaradaha lala soo gali jiray baan ka qaylin jirnay waxyaabaha ugu badan oo markaas aan raadinaynayna waxay ahayd in laga xoreeyo degmooyinka shabaab si aan loogu soo marmarsiyoonin inay shabaab yihiin waana waxyaabaha mar walba fiiri markii dadkii siyaasiyiinta dhulka u dhashay waxay tahay inay mar walba ka warhayaan dhulkooda waxa maanta la ciyaarayana ma ahan qori ma aha maanta waa siyaasad waxa la ciyaarayo
siyaasadda la ciyaaraya waa inay mar walba ayagu onboard yihiin waa mar walba inay dhulkoodii difaacan karaan waa inay mar walba dadkoodii ay u yihiin waxa halkaa ka jira oo xaqiiqda ahna in lasoo daraasaad lagu soo suubiyo oo ay caddeeyaan hadda anigoo maxaa la dhahaa waxa aan 5 bilood aniga halkaa u fadhiyey waxay ahayd inaan maalin walba caddeeyo in waxaan la soo weeraraya ay tahay Kenya aysan Soomaalidii weerar qaadaynin waxa la isku dagaalayna dhul Soomaaliyeed inay taasna tahay xadgudub aan marnaba loo dulqaadin marka waxa ay sheegay sidoo dhan inay jirto aniga ma beenanayo waxa aan soo arko indhahayga ku soo arkay baa shock ugu ahayd marka wax kasta oo dadka loo mar inay gaaraan si loo haysto dhulalka maxaa la dhahaa Jubbaland loo haysto baa la sameeyay waana waxa aan u istaagnay oo aan u diidanahay hadda waxa aan la dagaalsanahay anaga Axmed ma aha ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u cadeyno aniga Axmed isma haysano waxa dawladda federaalka iyo cid walba aan uga diidanahay inay Axmed siistay 2 sano waxay tahay in ay Kenya maalin walba marsiyo ka dhigato dhulkeena sida ay ku haysanayso baan diidanahay Kenya dagaal kuma nihin laakiin dadkeena horumar u rabnaa waxaan kacdoonka shacabka ay ii doorteena waxay tahay oo ii idmadeena waxay tahay inaan waxa ka shaqeeyo inaan maxal ilaaliyo dhulka inaan dawladda federaalka la wadaago xogta runta ah in dawladda federaalka sida saxda ah oo ay shacabkaas rabaan in loogu shaqeeyo inay nagula shaqeeyaan ayay awoodooda waxa iskale shacabkana waxay doorteen madaxweyne waxaan rabnaa hadda hadii insha Allah hadda dhibaatada ay dawladda federaalka ay jeysay aan arrimahan ka baxo oo ay arrinteeda u baxdo waxaan rabaa inaan Garbaharey tago oo aan magacaawno madaxweyne ku xigeen la wada ogol yahay oo ogol ah iyo maamul wada ogol ah waxaan rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay dadka u soo duceeyaan intii dawladda jirtay dawladii ku meel gaarka ah dadka waa dhibanayeen waxa maanta ummadda Soomaaliyeed ay uga bixi karta dhibkana waxay tahay in midnimada laga wada shaqeeyo qabiil Soomaaliyeed qabiil kale haduu la dagaalamo waligood waa la soo dagaali jiray laakiin maanta waxaan haysata oo dadka dhibaatada u keenaysa waa deriskeena taana waxay dhibaato ku tahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad waxaad rabtaa ugu dambeyn Marwo Suban aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah ee noo hurtay shacbiga Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee dhiban aad xogta ku siinayso waxaad warbixin kooban naga siisaa adoo soo gabagabeynayo shirka dhawaan laga filayo inuu ka dhaco magaalada Garbaharey oo la isugu yeerayo beelaha Jubbaland shirkaasi bal ummadda Soomaaliyeed la wadaag xogtaad ka hayso run ahaantii shirkaasi waxaan iclaaminay markii ugu horeysay oo aan tagay magaalada Garbaharey waxaana magaalada Garbaharey aan codsi aan u gudbinay dhammaan shacabka Jubbaland aan ka dhignay ku meel gaar magaalo madaxdii dawlad goboleedka Jubbaland inta buuxda laga qabanayo oo maadaama ay magaalada Kismaayo tahay magaalo ganacsi oo wax badan isku haysashadeeda ay dhibaato badan iyo conflict ay ka abuurtay maxal ah Jubbaland shacabkeeda ay ka abuurtay waxaan go'aansanay in dawlad magaalo madaxdii laga soo wareejiyo magaalada Kismaayo ay Garbaharey noqoto codsigaasi shacab badan oo Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay oo reer Jubbaland ah oo naga yeelay oo nagu xoojiya magaalada Garbahareyna waa idinku imaanaynaa wixii hadda way bilaabmatay insha Allah waxaan rajaynaynaa waqtiyadan soo socda maalmahan soo socda in la isugu wada imaan doono waxa aan ku aruurinaynana waxay tahay dhammaan dhaqanka Soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa reer Jubbaland ah waxaan rabnaa wax wada ogol ah in uu halka ka imaado maxaa yeelay aasaaskii Jubbaland baa qariban Jubbaland ma aha wax ay maamulka Jubbaland ma aha wax ay samaysteen shacabka Jubbaland waa wax igad dawladda Ethiopia iyo dawladda Kenya ay samaysay marka waxa aan raadinayna waxay tahay sida maamulada kale oo dhan in ay samaysmato wax ka imaaday shacabka Jubbaland waxaan halka isugu keenaynaa waxay tahay dhaqanka waxa ay ayaga ha isistiyaan taan qayb sax ha isistiyaan hadday kala baryayaan oo maxaa la dhahaa ayaga isku daynayaan ayaga u taala annaga maamul ahaan shanta lama galayno waxaan fadhiisanaynaa dhaqanka wax wada ogol ah markuu ka soo baxana waxaan rabnaa waxaas wada ogolka ah in baarlamaan sax lagu doorto baarlamaankaas saxda ahna uu doorto dawladda soo socota waxa annaga la shaqeynayna waxay tahay 2 sano oo 2 sano ku meel gaar ayaan rabnaa 2 sano ku meel gaarka ahna inaan annaga in ilaa heerkaas gaarsiino ee lagu doorto ee dawlad kale oo sax ah oo ku meel gaar ahayn oo baarlamaan wada ogol ah oo ka imaaday dhaqanka Jubbaland oo idil ka imaaday iyo maxaa la dhahaa dhammaan shacabka Jubbaland ka imaaday inuu halka ka dhasho ayaan rajaynayaa marka waa gobol xaalka ugu horeeyay oo dhaqanka dhan oo Jubbaland aan ma ahan maxaa la dhahaa dhaqan koox ah ma waxaan casubnay kuwa Kismaayo jooga walina wada hadal ayaa noo socda aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane madaxweyne insha Allah shacbigana aad baad u faahfaahisay aad baan ku salaameynaa waxaan kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qiimaha badan oo aad noo hurtay iyo xogtan ay ummadda Soomaaliyeed in badan oo kamid aysan ogeyn oo siisay aad baad u mahadsantahay
وما سنت محمد لما رمضان كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. gabadhaasi ama marwadaasi waxay ahayd marwa suuban mahadirir oo ahayd madaxweynaha shacbiga Jubbaland ee garabka dib u xoreynta Jubbaland. waxay ka soo qabatay shaqo aad iyo aad loogu aayo gobolka Gado. waxay ka soo shaqaysay dib u xoreyntii wacyigelintii saludhigii maamulka gobolka Gado ee looga saaray canaasiibtii caloosha u shaqaysiyaasha Kenyaanka ahaa. hadda waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. waxay ka shaqaynaysaa gogosha dhawaan reer Jubbaland isugu yeerayo ee magaalada Garbaharey ee barakaysan. waxaynu rabnaa dhammaanteen meel walba joogtaan inaad fadhiga ka kacdaan shirka aynu garab istaagno. meesha waxa ka jirana waa ladin sheego waa taa madaxweynihii sheegay. waxaynu mid u waraysan doonaa dadkii isbedel doonka ahaa ee madaxweynayaasha. barnaamijkan taxaan u ahaan doona insha Allah. waxaa jira asaga nin madaxweyne ku xigeen ahaa oo maxamed madaxweyne ahaa oo Kismaayo isku sharaxay oo hotelkii loogu soo dhacoonay ka bax eega iskama sharaxi kartid ka bax meesha lagu yiri eega iskama sharaxi kartid ka bax oo waliba nin booliska ka cayseen. waxaa soo dhan oo dulmi ah oo dadka loo geystay magaalo go'doon ah oo airportka iyo dhagax jibiska xiran oo aan diyaarad moog wax kale lagu gali karin Soomaalina u sinnayn inay meesha taalla inaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynaan doonaynaa. qaarkood san hore in kugu sheegnay ilaahu waxaan maqli jirnay qof aan wax ogeyn ha cadaabin. dad badan oo idinka in kamid ah waxaad aaminsantahay inuu meesha maamul ka jiro Axmedna wax ku hayo wallahi wa billahi tallahi inuu Axmed meesha wax ku hayo. meesha waa la haystaa dawlad dhaxalkeeni doonaysa inay qaadataa haysato. dawlad dhaxalkeeni badeeni dhulkeeni deegaankeeni doonaysa rabta inay dalka qaadato. Axmedna waa murtasaq horgal ah lagu shaqaysanayo. dhamaanna wuxuu arursaday murtasaqiin oo beelaha Soomaaliya ka keensaday maamul ku sheegay wax ka jira male. wax laba sano loogu daro ka jira male. wax maamul oo ka jira male. wax baarlamaan oo ka jira male. asagay ku dhamaataa asay ka bilaabataa asayna ku dhamaataa. waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliyeed ee gobolada Jubbooyinka ugaasyada waxgaradka salaadiinta culimadiinka saraakiisha caasimada kumeel gaarka ee Jubbaland ee Garbaharey iskugu keenay insha Allah. annaguna waa imaan doonaa halkaas waxa ka soo bixi doono wax ummadda Soomaaliyeed ee deegaanada degan ay ku aydo dalka lagu xoreeyo maamul wanaagsan lagu dhiso ayaa insha Allah ku imaanayso. wax badan baan ruwaa la tag bartaalid ku dib waa ku cad. Axmed hadduu Xasan maray oo Shariif maray oo dawladda nabad iyo nolol maray inuusan markaan tan waa helada waa helada xaaska ka qaadi lahaa oo ku bixi lahaa way. waxaan ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed u sheegayaa meel walba joogaan aynu garab istaagno cadaaladda. aynu u hiilino cadaaladda. aynu ku dagaalano xoreynta xorriyadda. xorriyaddu dheeldheel kuma timaado. xorriyaddu dheeldheel kuma timaado. waxay ku timaadaa dhiigga geesiga ayay ku baxdaa. waxaan leenahay dhammaanteen naf iyo maal waxaan haynaan hurno dalkeena cadowga kukuyada ah ku soo duulay ee saaka qarniga 21aad doonayo dalkeena inay qaataan. waa nasiib darro. waxaan rabaa sida caadada ahayd inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego inaan iraahdo nin degaankii uu ku dhashay cadow kaga soo cararay ee hooyadii iyo aabihii meeshay ku dhasheen lagu dhalay gumayso kaga soo cararay ee caag afarra ah asagoo tahriib ah ku soo galay dal Soomaaliyeed inuu dalkii cadow u soo kaxayso ka gataba doonayna. mid aabihii asagaba gumayso ku dhashay inuu annaga nasiib gumaysina geliyo ma doonayno. Soomaaliya ha israacdan leeyahay. Soomaaliya ha guulaysataan leeyahay. dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee reer Jubbaland shirkaas la imaado guul iyo gobonimo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.